السلام عليكم داوديال وادين سلاميا ميل كاستا oo aad dunida ka joogtaan si aad iga barateen ba si lamidii sidii hore ama si ka fiican ba waa maalin kale oo qurux badan iyo muuqaal kale oo xiiso badan magacaygu waa Saciid Galeer halka aad daawanaysaana waa Saciid Galeer fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe dhac isaga si haddii aadan ku cusbayna dee asxaabtaada la wadaag waa bilaash lacag maahan aad iyo mahadsantihiin ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta dawadayaal maanta waxaan halkan u fadhiyaa oo aan ka faaloon doonaa tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub kaasi oo ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho tartankani waxaan ka sameeyay sida aan qiyaasayo ilaa iyo 5 muuqaal inaan ka sameeyay jecelay hase yeeshee muuqaaladaas waxaan kala soo dhaxbaxay wareegii koobaad iyo wareegii labaad ee tartankan halka wareegii saddexaad oo ah semi final ana wax muuqaal ka sameeynin anigoo goostay inaan iska daayo inaan muuqaal kala soo dhaxbaxo wareega saddexaad tartankii waa soo gabagaboobay oo xalay ayaa lagu faraxashay oo lagu kala tagay waxa aan ka hadli doonaa maanta oo aan ka faaloon doonaa tartankani maxaa qiimo ah oo bulshada u leeyahay maxaa qiimo ah oo dhalinta ku soo kordhinaya tartankan natiijada ka soo baxday ma tahay natiijo lagu qanci karo oo dadka intooda badan ay ku qanacsan yihiin tartankan sida lagu horumari karo intaasoo waxyaabood ayaan maanta ka faaloon doonaa oo idinla wadaagi doonaa ugu horeyn waxa aan u mahad celinayaa oon bogaadinayaa kaalinta ay ku laheeday Balanbaalis Studio in ay tartankan la wadaagto oo ay u soo bandhigto dadka qurba joogta ah ee tartankan aad u daneynay ama ugu xirnaa daawadayaal marka inoo bilaaba muuqaalkeena maanta horta tartankan waxaa soo qaban qaabisay idaacad FM ah xitaa muuqaal maahan idaacad hadda yar oo FM ah ayaa tartankan soo qaban qaabisay markiisii hore fikradan dadka ay ka imaatana kulay waxaan dhihi karaa waa dad aad u wanaagsan marka fikradda uu tartankan ku bilowday waxay ahayd waxa aad u hooseeya in laba kursi inta meel la dhigto laba microphone la taago dadkii ay ku tartamaan codkooda la tijaabiyo heerka ugu horeeya ee wareegga koobaad uu ku soo bilowday waxa uu ahaa hadde waxaan meel weyn ma ahayn hase yeeshee waxay ahayd bilow aad u weyn ayay ahayd marka haddii idaacad yar oo FM ah
ay saameyn karto saameyn inta la eg ay bulshada ku yeelan karto idaacadaha waaweyn bal qiyaas saameynta ay ku yeelan karaan bulshada dhexdooda horta waxaa wanaagsan mar waliba dhanka horumarka in laga shaqeeyo haddii aad saxaafi tahay haddii aad idaacad u shaqeyso telefishin haddii aad u shaqeyso haddii aad leedahay idaacad ama wax kasta oo adiga warbaahin oo aad leedahay waxaa laba qaybood ayaad kaga faa'iideysan kartaa waa midda koowaad inaad kaga faa'iideysto dhanka qaalaasaha iyo isku dirka bulshada iyo inaad kaga faa'iideysato horumarka iyo karaameynta ummadaada iyo nabadda inta badan idaacadaha caalamku wadankooda marka ay ka hadlayaan waxa ay dhisaan oo ay bogaadiyaan nabadda iyo horumarka marka waxaan rajaynayaa in idaacadaha Soomaaliyeed ama warbaahintoo dhanba ay ku daysan doonto idaacadda Wadnaha FM oo tartankani bilow fiican u sameysay waxaana qiyaasayaa in tartanno kale oo ka xiiso badan tartankan amaba la mid ah ay soo socdaan oo la qaban qaabin doono dhalinyartu waxay u baahan tahay mar waliba in la madadaaliyo waxyaabo ay jecel yihiin loo horseedo lagu hormariyo waxyaabaha ay iyagu jecel yihiin oo ay doortaan marka tartankan waxa waa tartan aad u xiiso badan dhabaantii aad ayaa loola socday dad fara badan way xiiseynayeen marka haddii aan halkaa kaga baxo kaalinta uu bulshada u leeyahay waxaan leeyahay waa nabadda isdhexgalka iyo horumarka qodobka labaad ee tartankani dad baa isweydiinaya tartankan sidee lagu horumarin karaa waxaa lagu horumarin karaa marka koowaad in loo sameeyo meel u gaar ah oo tartankan kaliya in lagu qabto loogu talagalay waxaa loo baahan yahay teknolojiyadda waa la soo iibsadaa sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa in maamulada waddanka ka jira ama dowladuba ay gacan ka geysato sidii qalabkaas ee teknolojiyadda ah loo heli lahaa maxaa yeelay idaacaduhu ama telefishinada qaarkood waxaa laga yaabaaba inaysan awoodin inay soo iibsadaan barnaamijkan marka teknolojiyadda loo dhammaystiro waxa uu noqon karaa barnaamij sanadle ah oo sanad kastaba la qabto dhalinyartuna ay ku soo hirtaan la gaarsiiyo gobolada la gaarsiiyo meel kasta oo ay Soomaalidu joogto ee waddanka ah si loo helo dad fara badan oo leh hibadu kaliyana ma ahan in lagu tartamo heesaha kaliya ma ahan waxyaabo tiro badan baa jira oo lagu tartamo dhalinyarta Soomaaliyeed in la dhiirigeliyo waa wax aad u fiican ayna tahay wax waddanku uu ku horumarayo okay marka daawadayaal qaabka guddiga ama garsoorku ma fiican yahay mana saxan yahay su-aashaas haddii aad isweydiinayso daawade horta guddiga garsoorka tartanadan oo kale marka laga qayb gelayo wareegyo waxaa jira aan idaacadaha laga soo deynin ama telefishinada aan laga soo deynin oo very low ah sida wareega koobaad wareega labaad inta laga soo gaarayo idaacadaha lagama soo daayo amaba waxa aan dhaho wareega semifinalka inta laga soo gaaray idaacadaha lagama soo daayo wareegyadaas hore maadaama aan idaacadaha laga soo deynin waxaa la sameeyaa garsoorayaasha ama guddiga ayaa loo xil saaraa in uu kala saaro qofkii u soo gudbi lahaa semifinalka iyo finalka dadkii u soo gudbi lahaa inuu kala saaro okay marka maxaa dhacda guddigu marka uu soo saaro dadkii semifinalka u soo gudbi lahaa semifinalku waa live waxaa laga soo daayay idaacadaha haddaba live ayuu ahaa muqdisho cable waa laga daawanayay iyo idaacadahana waa laga dhageysanayay adiga meelo fara badan ayuu barnaamijkani live ka ahaa semifinalka iyo finalkaba okay guddiga shaqadoodu marka waxay tahay in ay soo saaraan dadkii u soo gudbi lahaa final iyo semifinal marka la yimaado barnaamijku waxa uu noqonayaa live ayuu noqonayaa marka semifinalka la soo gaaro maadaama uu live yahay dadkii dhan ay daawanayaan waxaa wanaagsan in la sameeyo number qof waliba oo tartanka ka qayb galaya ee u soo gudba semifinal ama final number loo sameeyo la yiraahdo dadweyne u codeeya dadku iyaga dooranaya guddiga kaalintoodina ay noqoto ilaa iyo semifinal halkaas marka dadku qofkii wanaagsan ay u arkaan inay wanaagsan yahay oo tartankan uu ku fiican yahay iyaga ayaa u codeynaya
qaabka natiijada ee codaynta guddigan ilaa iyo final aniga lama fiicna dhabaantiina dad fara badan ayaa jira oo aan ku qanacsanayn natiijada ay soo saaraan guddigu وعبد القادر محي الدين كلمية شمالي أحمد شمالي أيا قدوسين أيا ugu dambeyntii natiijada ka soo baxday tartankan ayaan wax yar rabaa inaan ka faaloodo natiijada ka soo baxday horta waan wada aragnay laakiin sida hore loo sheegay waxa la yiraahdaa gartu laba nin kama qosliso ninna isagoo murugaysan ayuu gurigiisa aadaa ninna isagoo faraxsan ayuu gurigiisa aadaa marka tartankan waxaa ku tartamayay ilaa 6 dhalinyaro ah 3 ayaa laga rabay inay ka soo baxaan hase yeeshee tartankan waxaa ugu da'yaraa ugu cod tolmoonaa ugu wanaagsanaa wiil la yiraahdo Cabdiweli Ibrahim oo ah nin dhalinyaro ah u baahan in la dhiirigeliyo waxa uu kasbaday shacbiyad aad weyn ayuu kasbaday dal iyo dibadba Cabdiweli dad fara badan ayaa u istaagay una rajeynayay inuu ku guuleysan doono oo number 2 oo tartankan ka noqon doono hase yeeshee natiijadii waxyaabaha la soo qiimeeyay waxaa ka mid ah fanaanku intuu masraxa soo istaago ma ku heesi kara heese kala duwan oo fanaaniin kala duwan ay leeyihiin iyo mid uu isaguba hadduu doono uu leeyahay miyuu ku heesi karaa Cabdiweli Ibrahim waxaan aragnay ilaa iyo waxa uu soo qaatay oo ku soo heesay dhowr fanaan heesahooda oo kala duwan shay mirada carbaha ugu badnaadee oo tartankii wareegii hore iyo wareegii labaad uu ku soo baxay nasiib xumo waxaa dhacday inuusan tartankii uusan wareega koobaad uusan ka gelin dadka intooda badana 100% waxay rajeynayeen in Cabdiweli oo tartanka ku guuleysto oo uu ka noqdo number 1 hase yeeshee waxa lagu guuleysanayo maahan waraaq ama shahaado maahane waxa lagu guuleysanayo waxa weeye shacbiyada iyo quluubta dadka Soomaaliyeed ninka ku guuleystay tartankan ee la yiraahdo kulmiye waan bogaadinayaa waxaan leeyahay hambalyo laakiin sidaan hore idinku sheegay guushu laba nin kama qosliso anigu waxaan rajeynayaa Cabdiweli waxaana jecelahay in dad badan oo Soomaali ah ay lamid yihiin oo ay u rajeynayaan Cabdiweli hase yeeshee kulmiye waxaan ku leeyahay hambalyo Cabdiwelina waxa uu galay numberka 2 ayuu galay waana fanaan dhameystiran waxaan rajay doonaa sanadaha soo socda inuu horumar aad weyn inuu ka gaari doono hamigiisa faneed waxaan leeyahay ugu dambeyntii waxaan leeyahay Cabdiweli waad guuleysatay ee lagama guuleysan inta tartanka ka qayb gashana ayagana sidoo kale ayaan leeyahay kulmiyana waan bogaadinayaa aad iyo u maasantiin daawadayaal daawashada aad daawateen muuqaalkan fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar haddii aadan ku cusbayna asxaabtaada la wadaag waa bilaash lacag maahan aad iyo u maasantiin inta aynu ku kulmayno muuqaalka ku xiga daawade waxaan ku leeyahay noloshaada raaxayso